dadka degan magaalada Tukaraq oo ka tirsan gobolka Sool Laascaanoodna 50 kiiloomitir dhanka bari ka xigta wadada isku xidha magaalooyinka Garowe iyo Laascaanood ayaa bilaabay inay halkaasi nafahooda kala cararaan waxa dhawaan la wareegay ciidamada Somaliland waxaana halkaasi horay custom ay cashuuraha ku qaadaan ugu lahaa ciidamo ka tirsan Puntland hadallo kulul oo ay isu marinayeen warbaahinta iyo ciidamo urursi xoogan oo deegaankaasi ka jira ayaa dadkii halkaasi deganaa ku riixday inay deegaankaasi ka cararaan gudoomiyaha gobolka Sool Cabdi Khayr Dirir oo maanta xarunta gobolka ee magaalada Laascaanood kula hadlayay warbaahinta waxa uu sheegay in ciidamadoodu ay sii joogi doonaan magaalada Tukaraq horeyna uga sii socon doonaan ee ay ku sugan yihiin dal iyo dad ay leeyihiin oo kamid ah dhulweynaha Jamhuuriyadda Somaliland saad la socotaan xuduudda u dhaxaysa Jamhuuriyadda Somaliland iyo maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland waxay martaa meel u jirta 8 kiiloomitir caasimadda Puntland ee Garowe halkaasna waa xuduudkii rasmiga ahaa ee internationalka ah ee loo kala calaamadiyay iyo dad shisheeye ee meesha ay ku sugan yihiin deegaankeeda Puntland waxay caadaysatay oo caado ka dhigatay oo ay ku dhaqantaa sidii jamhadaha inay maalinba xuduudda dharan ee Somaliland ay meel ka gasho oo ay maalinba dadka ku xasuuqdo oo ku layso tagno hadii la yiraahdo odayaasha deegaanka Tukaraq xeedhan la sameeyay waxay sheegeen inay ka biyadiideen inay kula kulmaan sidoo kale ciidamaduna ay difaac ka galeen Tukaraq anigu ma hayo odayaal diiday haddaan kaaga jawaabo faaraxo su'aasha ayadaana tirada laba jeer baan Tukaraq tagay hawlihii aan u tagay aan u idmadaan waan ka soo dhameystay warkaasna waa mid ku kooban ciidankuna wuxuu joogaa disad ka warayso oo ku sugan yahay hadeerto deegaanka Tukaraq degmada Tukaraq laga xukumo ee meesha la mataqaana ay sheeg gud qaboobe xuduudana si nabadgeliya ah loo tagayaa hadii ay si nabadgeliya ah loo tagi waayna waxa weeye dawladdu waajibaadkeeda dastuuriga ah bay qaadanaysaa ismada deegaankana way ku shireen go'aan bayna ka soo saareen waxayna ku baaqeen in Somaliland la dagaalamo adiga ka gudoomiyahan si waragta baaqa ismada ka soo yeeray ismada anigoo ixtiraam u haya oo ismadeedii hadda waxa leeyahay waa go'aamadii hore ay soo saari jireen kale arrintan ayaa ku soo beegmaysay iyadoo dhawaan ay ciidamada Somaliland halkaasi tageen waxaana dadka qaarkii quudareen in ciidamadaasi dib u soo laab Faarax Dubad goobjoog Laascaanood